صافي رمضان مبارك كولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن هابي رمضان. صباح وناكسن قلب وناكسن هبين وناكسن قرابي أحسابه kusoo dhawaada Kawawa Food Channel oo maanta idin diyaarin doono bur simple ah on olyadana gudaha aysan ka galeenin kulle qof kasta si ayuu u yaqaanaa in loo sameeyo laakiin aniga sida aan u aqaano oo ugu fudud aysan saliid gudaha ka galeen ayaan rabaa inaan maanta sameeyo. waxaan horta idin leeyahay Ramadaan Kariim adduunka meel kasta oo aad ka kala joogtaan. burkan magaciisa waa bur couscous malab. okay waxaan rabaa inaan halkan aan ku shubto biyo qandax ah, biyo oo qandax ah 3 qaado oo dhiganta qaadada bariiska aan ku cunno waxay u dhigantaa kan 1 tablespoon markaan idin leeyahay waa qaadada aan bariiska ku cunno. hadaadan qiyaastaan haysan qaadada bariiska ayaad ku cabiranaysaa. waxaan ku shubanayaa 3 tablespoon oo u dhiganta qaadada bariiska 3 xabo. waan ku shubay 2 3. okay waxaan kaloo ku darayaa kicisada oo ah iyadana 1 tablespoon ayaan ku darayaa ilaa intuu raali ka noqdo. kicisadana waa noocan Tesco ayaa ka helaysaa. iyadana waxaan ku darayaa 1 tablespoon ayaan ku darayaa. waa ka qiyaasta. kicisada waan ku shubay waa 1 tablespoon iyadana. intaas ayaan si fiican isugu qasayaa. qaadadaas plastikada baa loo baahan yahay ilaa aan si fiican isugu qaso. kama joojinayi qasida. waan isla soconayaan maleenayaa ilaa ay isku milanto kicisadii iyo 3 qaado biyaha qandaca ahaa. lama rabo couscouskeeda inuu muuqdo kicisada. wuu fudud yahay qof kastana si ayuu u samaysan yaqaanaa kulle. waxaan u maleynayaa habka aan u sameynayo inuu ka duwan yahay sidaan hore u arki jiray amba dadka kale ay u soo geliyaan. waa kaasaa si fiican ayaan isugu qasay. hadda waxaan ku darayaa waa cusbo. cusbada waxaan ku qiyaasanayaa ugu yar oo ah 1 xariiqin 4. qasayaa iyadana. waxaan ku darayaa sokor iyadana ah 1 xariiqin 2. waa qiyaastaas. sababta sokorta loogu yareynayo hadhow ayaa sokor u sameynaya aan kor kaga qasi doono oo sidii malabka oo kale aan u sameyn doono. waxaan ku darayaa baking powder oo isagana qiyaastii ay tahay 1 xariiqin 4.
hal xariijin afar markaan idin leeyahay waa qaadadii aan cusbada ku qiyaastay oonan aad u buuxin waa kaasaa qiyaasta waan qasayaa haddana waxaan ku darayaa waa corn flour oo qiyaasti ay tahay qaadada aan ku cuno bariiska 1 tablespoon intaas ayaan ku qasaynaa hadda waa inaan si fiican u burburinaa corn flour-ka waxa loogu daraayo wuxuu ka caawinayaa in uu burkii marka aad uu qamiiro amba aad dubaysid saliidda saysan dhexda uga gelin waa kaasa waan isku qasay si fiican aan u qasay waad ujeediin hadda waxaan ku darayaa hal koob oo bur ah depend familka cadadiisa intay tahay laakiin hadda qiyaasta aan sameynayo waa qiyaasta ugu yar waxaan ku qasanaynaa markasta biyo qandac ah adoo wadan ka badanayn biyaha lama rabo inuu adkaado burkii lamana rabo inuu jilco qiyaasta adigaa lagaa rabaa inaad soo samaysatid markasta waad ku daraysaa wax yar biyahana waa qandac saa hore idinkugu sheega aan ku qasooyo in yar kalaan ku darayaa lama rabo burka inuu adeeg noqdo lamana rabo inuu kaa jilco uu biyo camal noqdo sababtoo ah xasaas loo yeelayo burka inuu isqabsado ayaa la rabaa koolla camal wax yar kale ayaan ku darayaa haddana waxaan kaloo ku darayaa saliidda caddayda ee wax lagu shiilo waa 1 tablespoon already waxaan ku qiyaastay qaadadaas oo u dhiganta qaadada bariiska waa easy burkan hadhuuti markaan sameeya ayaad arki doontiin oo liimankaa galayso wuxuuna ku macaan yahay kafeega in lagu cabo si fiican waa inaan isku dhex galaa oolyadii iyo burkee
ujeedin sidii la rabay ayaan u qasay. habkaan u qasayna waad la socoteen step by step. marka hadda waan daboolayaa ilaa uu soo qamiiro muddo 15 daqiiqo ah. aniga marka hore bacdaas ayaan ku daboolaa, kadib ayaan saarayaa marada. 15 daqiiqo ayaan sugeynaa. saacadda ayaan noogu geenayaa 15 daqiiqo. waan isku soo laabanaynaa qaraabi axsaabba. qaraabi axsaabba waan isku soo laabanay. waa kanaa burkii wuu inoo qamiiray. marka hadda bakeerigaas aan bacda geliyay ayaan rabaa in aan ku dhex shubto. isla soconayaan u maleynayaa. markaa burka qasatidna waa in uu dhigtid meel kulul maaha meel qabow si uu kugu soo qamiiro. 15 ilaa 20 daqiiqo markaas wuu qamiirayaa. laakiin haddii aad meesha aad dhigtay ay qabowdahay waqti ayay kugu qaadanaysaa in uu qamiiro. bakeerigeena ayaan ku shubanay. marka afka ayaan rabaa inaan ka jaro si aan qiyaasta adiga samaysanayo kulli. haddaad rabto inuu bur waaweyn kuu noqdo iyo haddii kaleba wax yar un baan ka jarayaa. ma rabo bur aad u waaweyn inuu meesha ka soo baxo. qiyaasta adiga saad rabtid ayaad u jaran kartaa. saliidda ha noo kululaato. waxaan fiirinayaa saliidda inay noo kululaatay. kuleel aad u badanna lama rabo sababtoo ah wuu kaa gubanayaa burkii oo ma xamili karo dab aad u badan. marka hore waxaan taabsiinaynaa manqaska saliidda. ma rabo bur waaweyn inuu noqdo. qof walba kulli qiyaasuu jecel yahay. aniga sidaan ayaan ku jeclahay. markasta aad jaraysidna waa inaad manqaska oolyada gelisid, haddii kale kuuma go-aayo. intaan ayaan horta soo sameynayaa. waan isla soconayaa maleynayaa qaraabo. saliidda maahan inay aad kaaga karto. burkana waa inuu gooldigaas kuu noqdo
saliidda aad uma kululeynaysid sababtoo ah dab badan ma xamili karo burkaan. kalarka gooldiga markuu noqdana waan ka bixinaynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. isla soconaya maleenaya hadba kii kalarka gooldiga noqdo waan ka saareynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. hadda sida kan oo kale waa diyaar. sidii la rabay markaad u qastid dab badan uma baahna saliidana ma gelayso saan hore idinkugu sheegay. mar kasta ha iloobina in aan manqaska aad gelisid saliidda. kalarkaas markuu noqdo horaad ka saaraysaa. waan idiin sheegay dad badan uma baahna burkaan. That's it. diyaar. saliiddii aan iska daminaynaa halkaas ayaan isaga fogeynayaa. marka hadda waxaan saaranayaa digsigaas oo waxaan rabaa in aan kareemkeeni diyaarsano. waa bakeeri sokor ah iyo bakeeri biyo qabow ayaad hal mar isku saaraysaa. waxaad ku daraysaa wax yar oo sacfaraan ah si uu kalarkuugu yeeshato. sacfaraankana kama badinaysa. waa hal xariiqin labo oo aan sii kala qaybiyey. waan idin tusi doonaa. intaas unbaad u baahan tahay. waan isku qaseynaa.
ilaa uu kareem camal ka noqdo. weli sidaas ayaan u walaaqeynaa. sokortii iyo waa isku milmeen biyihii iyo sacfaraankii. waxaan hadda ku darayaa marka wax yar oo heelka shiidan ah. taste baan uga rabnaa. walaaqidii ayaan ku sii wadeynaa ilaa uu ka noqdo liim koolla amba koolla camal uu dhegdhegaayo xoogaa. mana la rabo adeeg inuu noqdo. markuu diyaar yahay waa isla arkeynaa. lama rabo inay sokorta ka adkaato. waxaa la rabaa in ay gacantaada markaad ku taabatid in yar ay sticker yar ay leedahay dhegdheg yar. sokorteeni waa inoo diyaar hadda. markaan rabo inaan test gareeyo inay koollo tahay farta unbaad ku taabanaysaa. waa diyaar hadda. marka waxaan ku shubanaynaa dabkana waan deminayaa. markii aan samaysanay ayaan ku dareynaa. waan ku wareejinayaa si uu koonar kasta uga gaaro. waa isla soconayaan u maleynayaa ciyaarta. meel kasta inuu ka gaaro ayaa la rabaa. uu si fiican gudaha uga galo. marka hadda saxankeennii ayaan ku shubanaynaa. isla soconaa qaraabi axsaabba. marka inta soo harto oo liimka kareemka camal ah korka ayaad kaga shubanaynaa. waad ujeediin haddaan idiin soo dhaweeyo. kadib waxaan korka kaga shubeynaa ilaah ku raalli ka noqo pistachio oon decoration kaga dhigayo korkiisa. so beautiful maasha allah. qaraabi axsaabba sidaas ayuu ku soo baxay. liquidahaas waa kareemkii aan sameeyey. aan aragteen habkaan u sameeyey. ma adkaanayo ismana bedelaayo. sidaas ayuu jilaacaas u ahaanayaa. sababtoo ah habkii aan u kariyey ayaa ah qiyaasta dabka inta uu ii saarnaa. haddaan ku sii hayn lahaa wuu adkaan lahaa. marka asaga ayaa koolla camal isku noqonayo biusa borit. qaraabi axsaabba qiyaasta aan sameeyeyna waa qiyaasta ugu yar. depend familkaaga inta uu yahay qiyaastiisa. haddaad ka badan rabtid intaan qiyaastii aan idin tuso ayaad laba jibaaraysaa oo keliya. qaraabi axsaabba kusoo dhawaada Kawawa Food Channel. adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim, Ramadaan Kariim. like commentiga, shareka, subscribe-kana waa xaggiina. subscribe-ka markaad saartid video kasta aan sameeyo halkaas ayaad ka heli kartaa. sidaas iyo nabadgelyo. Ramadaan Kariim mar labaad iyo mar saddexaad. bye.